magaalada markaan soo aaday laba gabdhood oo miyiga isku naqaan magaalada joogtayaan labadeedii sarag isla socda labadoodii markii aan wada fariisanay waxay ku direen ana xigsanaya ku direen qaar waxaan ku yiri waxaan ka dareemay xafada ka maqla jiray gabdhahaas inay dareen wali ii qabaan uma jeedin waxa soo dhan in ka badan muddo sanad ah waxaan ku dhex jiray jacayl stoos ay waalay ruuxantii anigoo yar isla markaasna ah arday dugsi quraan dhigta ayaa waxaan la dhigay jiray dugsiga ama ila dhigay jirtay gabar ardayada isla markaas waxaan ahaa bulshada aadka gabadhaasi quraanka u dadaasha quraanka yaani barta macalinka looga baxo kale inta badan ka saacida gabadha anagoo inta saas ugu fiican hadana daris aan ahayn ayaan dugsiga quraanka wada baxay markaan muddo ismoogeen ayaan waxaan arkay gabadhiyo weynaatay heer gaartay lalaha saago karo anigana heer joog markaas hadana markaas aan ahaa aad iyo aad qof jacaylka u qadariya gabadhii aniga ayadii muddo baan miyiga isku naqana daris ahayn oo isku soo dheelmi jirin xitaa mararka qaar waxa dhici jirtay saako kale aan dhan aroora wada tan ka doo imaado nin kale oo dariskiga oo dhan aroora sii wata inaan tasayn tartay ga xariisho ila saaxib inta ka soo laabanaya markaasna noodii ka tago ratigaas oo markaas aan gabadh iska aado cidii iyo wixii ma iska iloob aan ka dhaxgale gabadha meesha ay degantaa iyo markaas aduu meesha aad geelay iyo xoolihii iyo arigii wixii masaafo intee waa muddo aan yarayn laga yaabo 90 kilomitir ka badan tahay oo markaas masaafo indhan way marka intaas oo dhan ay isu lugay jiray laga yaabo halkaas mar u tago inaan marka u tago ka soo qaato go'eeda anigana coodadeeda siiyo si aan u heshado inta isfoogna meesha isku celi macnaha go'a inaan macawstaada qaado macnaha coodadeeda aan siiyo ayada ay aniga iga dhigato anigana aan ku soo qaato go'eeda inta badan markii xilliga aniga aan yaraa boqolkiiba boqol telefoonadu sidaad saan uma ahayn dadku way weysiteen laakiin aniga markaas aniga iyadu ma nasidan marka waxa aniga ii ahaa markaas intaas wehel ka dhiga jiray go'eeda ayadii aan ka mitali jiray marka qaar laga yaabo inaan ula iyo waxantaan ku duuduba ayadii moodo oo iska fiirsado go'eedaas kadib markii laga soo tago go'a waxaad ku duubay go'eedii markaas ka bacdi kadibna waa fiirsanayaan taan ka fogaado yaan fiirsanayaa oo moodaya ayadii moodaya waxa ku sawirmay markaas inaan la joogaa moodaya marka qaarna waxaan arkaa inuu la hadlayo qodka aan arkaya waayo qalbigu moogtahay waxba kaga dhigan moogtaa kadib markaan ka soo tago waxa laga yaabaa in weydiiyo la yiraahdo inta ku maqneed inaan iraado yaani baadi maqnaa raadish baadi markaas dadku ay moodayaan xoolaha laakiin anigu xoolo kale ma mashquulsana kadib markii laga soo tagay gabadha muddo ayaan sinaqaanay kadib markii dambe waxay tiri waniyo aniga adiga waa inaan farshaxanka ama danta laga dhaxlay mustaqbalka koobna soo dhameeyna waxa dhacday inaan ka aqbalay galab casirkii anoo geel wada ay i weydiiday anay waa ku mahadsan tahay inaad barnaamijkaasi tarawa inta ka sugayay waano isarag dambe kuna ballanay kulan cawo xilliga habeenkii markii la gaaray soo qabatay isla markaasina ay tiri saaxiibow marka waan isku dhaweyn markaas ay tiri saaxiibow caaway jaalis wali mashquul ka cudur daaray intii ku dhigaysa waa gabadhii ku dhigaysa waaye waa inaan barnaamijka xiriirka soo koobnaa way cudur daartay marka waan ka aqbalay habeenka waa iska joogay subaxii dambe ismaana arkin maqribkii dambe qaban soo wacnay waxay tiri saaxiib waa inaan aniga adiga caaw barnaamijka soo koobnaa maqrib hore geelay waxay soo xirtay waan soo daayay marka meel dhax markaan soo maray soo wacd waxay tiri laba nin oo markaas aniga aan qaano midna lagu magacaab jiray Shariif midna lagu magacaab jiray Cali waxay tiri labada nin ninkeeba kule kala aragooda waa qan laakiin ninkeeba qayb badan aniga markaas ruuxantii qofkii waa iyada qof aan u socday moogtay tan kala moog wax kale i weydiiday waa yaaba waxaan labada nin maxay iga weydiisay labada nin dadaba kala ha jacayl dhabaniyaan dhex yaalay marka xalay halkaan kula waa mashquulsanaa wadadan joogna inaan baxnaa rajinayo xariifkaas rabaan la baxala way noo suuraab weyd galabta waxa la ilaahay kana kule labadoodii marka adiga isku ka aaminaa iga warnaytiniyo aniga jeclaa oo barnaamijkina la dhameeyay rabtay u soo socday xiriirkii ka dhaxeeyay u soo socotay waxa lagu inta lagu soo wacay ninkaas iyo ninkaasaan jeclaaday kee la goostaa oo aan saafaysanaa qof kale amal iga dhigtaba waa yaabay marka aniga intaan wax yar fikrad qeyr inta hadalka waday yaa waxaan idhi abaayo kii xal la joogtay yaa kule waa ma santay tir marka hadii aan baxnana hambaliyo ku salaamiya hanaga warbixin hadii yaani aan bixina was arkaynaa tir maxaa dareentay markii lagu yiri labadaas inta markii la yiri waan taagnaa waa fariist aniga markaas waxaan ku yiri xitaa istaag waxa laga yaabaa inuu u noqday dib weyn kadib markii soo wacday waa la yaab markaas waxaan dareemay wax weyn isir maxay dhacay waxa lagu soo wacaya
markaan taleefanka qabto waxay tiri niyo adiga baleenka ii sheegtay halkuu ku baaba aniga waxaan iri markaan niyo halkuu ku baabay oo soo adiga yiri qof kale la socdaa say tiri ma saaxib qofkii wuu iimaa waaye dhowrana ma yana keen adiga waaya markaas ninkayga hore noqdo marka heerkayga hore u soo laabto waa kinsa ka tagay nimadeedii hore marka hore waa soo lugayay waa uu mid meel xaafada ka sokay iiga hortimid waxay tii saaxiibow markii aan ardayda quraanka wada hayn ma xusuusataa in badan inaad uga gacan qaban jirtay xagga diiniga inta badan ay iga saacidi jirtay ardayga iyo macalinka dagaalka u dhaxay kara haduu casharada qofka aqoon waayo si fiican intaas ayaan kugu ixtiraami jiray laakiin ma jirin aniga wax dhaban ku hayay qof maxaa dareentay maadaama ruux wax jecel ahayd maxaa ku sawran waxa laga yaabaa inaan la mitaali karin ba hadalkaas kaliya markaan maqlayo waxaa moodaya in waxa midii ugu karkarayso wax weyn ii dhibayso anu hadalka xitaa marka qaar uga jawaabi karin ka aamusay waxaan iri marka waxay tahay qof aniga aan jeclaa iga maqnaa muddo in moogaa waa una yidin hadda marka waxaan kaga hambalyeynaya noloshii hore aniga soo marna waxaan ku leeyahay hambaliyo inaan kalmad kale u furo xitaa waa kar waa iska tag habeenka isboogeyn laga yaabo habeenkaas inaan saacado yar kooban seexday waqti dabadiis subaxii soo wacdo warniyo saaka iimo tiri waa la yaabo markaas way adiga maxaa dareemi kartaa markaas markii lagu yiraahdo adiga waxa moodaan lagu ciyaarayo marna waxa ku hagaya wax inta ku jiray ay ku hagaysta laakiin rabitaan jiro waa ina ogolaato ha quusta lama arko ii imowdaas wax weyn oo arkaya aniga soo صحيح وأنتجي مرك أنتج واحد إلي صحيح واحد تري adiga habeen aan ku iri ma xusuustaa mashquul aha habeenkii ka horeeyay baan waxaan mashquul ahaa habeenkii dambe qolaa mashquul ahaa ninkaas ila joogay haddana waxa uu ka hadlayay markaas waxa uu ahaa uu igu yimid waxaan iri sidaad oo kale tijaabo intaan ku weydiiyay ayaan weydiiyay waxaan iri yani ninkaas adiga intaan ku soo daray ninkaas ka war wuu xanaaqo iska laaftayba waxaan ogaaday rabitaan ku jira wax yahay wax yar oo kooban waa iska nacay imtixaan ayaa ahay waxaas inay marsinayay waxa laga yaabaa tii xitaa marka qaar inaan hamiga asaga aan jeclaa laakiin imtixaanka abaastay dirteed ayaan ku aqbala naftaada oday u yahay aboosi oo baxayo tiranadii saaxiib macana waxaan ku yiri niyuska xilligan dhab yahay soo koob xilligan saakay waxa laga yaabaa ku daba galay haye markay ku dhaheeday nimankaas ka waran iyo markaan dambe ku leedahay adaa guuleystay oo nawado waxa waaye wax walba okay waaye intee u dhaheeday saacada maalmo maya waxa u dhaxaydaba habeen iyo subax markaas waxaan moodayay adaa guuleystay leedahay inaan ku guuleystaba madaxweynaha Soomaaliya kale farxadda uu dareemay markii uu guuleystay farxad ka weyn oo aan dareemayo markaas waaba ka sareeyaa dhigi karaaba saariga fiiray madaxweynaha aan ka sareeyaa moodaya marka waxaan iri aad iyo aad u maasanta halkii aan iska hanano aniga iyadii aan hooyo abas ku noqon marka waxaan fahmay inay tahay tijaabo marka qaar wax sameeyay jirta aniga iyadii markaa isticmaalay xitaa waxa dhacday habeen ma ayaan soo aaday magaalada markaan soo aaday laba gabdhood oo miyiga isku naqaan magaalada joogtay ayaan labadeedii sarag la socda labadoodii markii aan wada fariisanay waxay ku direen anaa xigsanaya ku direen aniga waxa soo jeedo marka qaar waxa rabnaa adinka kale qoysatay ku xiro soo wada moogta horta italaatay lawada aniga markaas ay leeyahay ku talaan waxa isla magna kale ku dhajeen hebla ku ilowsiyaan waxba kama dhigeysto marka waxa iraahdaa saaxiibayaalow iga wareejiye marka qaar waxaan ku yiri waxaan ka dareemi jiray xafada ka maqli jiray gabdhahaas inay dareen wali ii qabaan uma jeedin waxa soo dhan diriska sheegi jiray diriska oo isku dagaalay inay geeska fadhiistaan geeska fadhiistaan anigana taasoo geeska fadhiistaan wax arki jiray adduunka nolosha barkeeda u arki jiray waxay aqrabishku waxaan ogaaday marka inay tahay tijaabo meesha marka qisada ama jacaylka isoo maray ruantii waxa ku jira faa'iido ay leedahay waxa laga dareemi karaa in ay tahay gabdhaha hadaysan tijaabin shakhsiga waxa laga yaabaa muxbbada u qaba inay wax yar kooban tahay oo marka tar labaas qof ka waran sidii hadda ay dhacdo kale inuu yiraahdo waxba ma qosay igu xagga iska aado wax dana uma lahayn laakiin wuxuu inuu hadda iskaga dhaqaaqo Soomaa waxa laga yaabaa marka ruuxantii hadii ay tijaabiday oo ogaatana qof kasta muxbbadiisa heerka ay gaarsiintay inay ogaato waxa way marka bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay gabdhaha qaasatan jacaylku iyo tijaabada ay ku gelin ragana waxaan leeyahay taxanka saa u baasi kartiin isku day asxaabi gabadhii markii dambe oo adaa guuleysay sidii isku hesheen sida saaxiibkii u sii wada sidii u sii wadana ma ahna waliba intii hore oo ka sii kobca way marka waxaan dareemay moogtahay wax weyn aan dareemay moogtahay marka saas tiraadeed haashmu asxaabta dhan waxaan leeyahay qaasatan adoo isla fadhino ugu horeeyada waxaan ku leeyahay saaxiib tijaabada ku dhicin tijaabada dumarku wax salan ma aha
meelaha xitaa marka qaar aad dareemi karin dad xitaa waxay isleeyihiin hadda tijaabo way dhaaftay barnaamijkan ninka gadaal ka soo rabota alisleem og laakiin aniga ruuxantii qofkii maadaama kulan badan sii wada joognay waxaan hufsaday in wixii tijaabo ahayd ya marka waxaan leeyahay asxaabta Soomaaliyeed meel kasta ku nool muuqaalkii soo gaaraya asxaabay hal la joojiyo tijaabo la'aanta